ciidamadan tababarka lagu soo xiray degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu talagalay inay sugaan ammaanka deegaanada maamulka Galmudug waxaana sidoo kale si gaar ah ay ugu xilsaaran yihiin inay sugaan inta uu socdo shirka lagu dhameystirayo heshiiskii dhexmaray maamulada Galmudug iyo maamulka gobolada dhexe. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa tababarkan u soo xiray waxaana ciidamada uu kula dardarmay inay ilaaliyaan shacabka inta ay ka howlgalayaan deegaanada maamulka Galmudug. marka waa idinkaga shukrinaynaa sida wanaagsan ee aad hawshiina diyaarka ugu tihiin diyaar garowdeen waa idinkaga shukrinaynaa waxaan aad idinku boorinaynaa waxa aad waardiyeynaysan oo ilaalinaysaan waa shacabkiinni sida ilmaga aad dhashay aad ugu naxariisan lahayd ayaa shacabkana ugu naxariisanaysaa ilmaha aad dhashay saad ugu naxariisan lahayd yaad yar iyo weyn shacabka kalena ugu naxariisanaysaa waxaa la rabaa muuqaalkaasi inuu noqdo muuqaal aad kaga turjumaysaan ama aad ku matalaysaan culimada Soomaaliyeed aad ku matalaysaan culimadii ahlu sunna wal jamaaca aad ku matalaysaan maamulka goboladan ka jira aad ku matalaysaan Soomaaliya oo dhan ciidankeedii sharafta lahaa aad ku matalaysaan waxaan leenahay marka dadaal dheeraada iyo dulqaad baa la idinka rabaa waxaa loo dulqaataa wax walba caqabadaha ka hor yimaada waa ku faraxsanahay maanta idinkoo boqolaal ah inaa halkaan idinkugu soo xirno tababarkiinni aad baan ugu faraxsanahay faraxa idinkuna aad faraxsantihiin aan idinla qaybsanaynaa waxaa weeye bulshada qaybaheeda kala gedisanood u khidmaynaysaan waxaan idinku celcelinayaa dulqaadka aad u dulqaadanaysaan waxa aad idinka soo qaabilahaya. Sheekh Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale waxa uu u mahadceliyay macallimiintii muddo tababarkan u waday ciidamadan waxaana ciidamadan ay sugayaan inta badan ammaanka inta uu socdo shirka kaas oo la filayo dhawaan inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. aad ugu sii mahadcelinayaa macallimiintii halkan soo gaarsiida ciidanka iyo saraakiishii arrimaha ka qayb qaadata dhammaantood waxaan leenahay ahsantum ahsanallahu ilaykum baarikallahu jazakumullahu khayral jazaa shukran lakum wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. si kastaba ha ahaatee tababarkan oo ay muddo 2 bil ku siman ku qaadanayeen xero tababar oo ku taala degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa ciidamadan loogu talagalay inay sugaan ammaanka deegaanada maamulka Galmudug waxaana ciidamadan ay yihiin kuwa u xilsaaran in ammaanka ay la wareegaan. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudugna waxaa haatan ka soconaya diyaargarowga ugu dambeeyay kaas oo ku aadan u diyaargarowga wufuudda imaanaysa magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo la filayo inay ka qayb galaan munaasabadda dhameystirka heshiiskii dhexmaray maamulada midoobay. Ibrahim Xasho Cusub, Somali Cable, Dhuusamareeb.